ayaan loo waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo iminka waxaad bedesheen ganacsigii ay hore u haysay aaraariyadu oo maryaha iyo kabaa la iibin jiray bal markii aaraariyadu ay joogtay magaalada alaabtaasi way jabnayd iyo bulshadu leedahay iminkana waa qaali maxay tahay sababtu bismillaah waxaan su-aashaad weydiisadaan ka jawaabay alaabta aaraariyadu sidii ku iibin jirtay waan ku iibinaa horta waan gartay laakiin alaabtii baa sii kacaysa waan gartay iibka aan soo iibsanin awgeed ayaa waxay mar walba sii kordhaysaa waan gartay taas waxay keenaysaa in alaabtii markaa dee kordho alaabtan aad magaalada keenaysaan markaad soo iibsanaysaan bay qaali ku joogtaa iminka bise sara ku magaalada dhexdeeda kaga yimi wuxuu marka aan soo iibsanin alaabta markaad soo iibsanayso bay qaali tahay markaan soo iibsano markaa taas waxay keenaysaa in dadkii markaa ay alaabta wax ku dartaan hadda sidoo kale waxaad ka warhaysaa bagaashka oo kale haddaan tusaale soo qaato dee caagada saliid ahay $4 bay beri dhaweyd haddana $6 bay maraysaa waan gartay sonkortii 8 bay maraysaa waan gartay nuskii wuxuu marayaa iminka $14 $15 markaas wixiiba waa qaali garow iyo ka waran $12 buu markaa alaabtaas sare u kacaysaa xaggee bay ka imanaysaa bay kula tahay waxay ka imanaysaa waxa weeye sababtu alaabtaas waxay ka kacaysaa dikida waan gartay cashuurtii lagu kordhiyey waan gartay taasaa sababaysaa kulisaan ka warhayna waxaa kale oo sababaya xoolaheenii waan iib lahayn oo suuqooda haddii ay saylada tahayna xoolihii waa jaban neefkii $200 leen sayid laga sanay haddii ay tahay haddii ay ahaan xagga dhoofintiina waxba lama dhoofin xoolaha maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa horta inay cashuurta ka jabiyaan dadweynaha way ka naasilaan sidoo kale waxaan ugu baaqayaa inay bal xoolaha ay soo eegaan hadday tahay xagga bad furanka iyo xagga marka waqtiyada xoolaha la iibsado inay xoolaha ma garanaysaa waayo Soomaalidu haddaynu nahay inuu xoolahaynu ku dhisanahay xoolaheena maanta iib ma laha dhoofidna ma laha marka dawladda waxaan ugu baaqayaa inay maciishadan kacaysa ay iyadu inta ay siiso intii